maanta oo ah 8 bisha 12 2020 waxaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca arrimaha Afrika Mudane James Dadrich oo uu weheliyo safiirka dalka Ingiriiska u fadhiya Soomaaliya Mudane Ben Fender. wadahadallada labada dhinac waxay ahaayeen kuwa aad miro dhal u ah waxaan xoogga lagu saaray iskaashiga u dhaxeeya dawladda Ingiriiska iyo dawladda Soomaaliya iyo sidii loo sii xoojin lahaa iskaashigaas. waxaa si gaar ah looga wada hadlay arrimaha amniga, dimuqraadiyeynta, kobcinta dhaqaalaha iyo sidii loo xoojin lahaa arrimaha doorashooyinka dalka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa la wadaagay wasiirka qorshayaasha u hirgelay dawladda Soomaaliya muddadii ay jirtay iyo sidii loo xaqiijin lahaa dib u dhiska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, la dagaalanka argagixisada, la dagaalanka musuqmaasuqa, horumarinta dhaqaalaha iyo dib u heshiisiinta. wasiir James ayaa asagu dhinaciisa bogaadiyey guulaha ay dawladda Soomaaliya ka gaartay hanaanka dib u habeynta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kobcinta dhaqaalaha iyo sidoo kale qorshaha hirgelinta doorashooyinka qaranka. wuxuuna intaas ku daray inay sii wadi doonaan taageerada ay siiyaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dib u dhiskooda iyo inay sii xoojin doonaan xiriirka u dhaxeeya labada dawladood ee Ingiriiska iyo Soomaaliya. wasiirka arrimaha dibadda ee dhinaca arrimaha Afrika ayaa salaan ugu tegay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Roble, halkaas uu ra'iisul wasaaruhu uga warbixiyay guud ahaan xaaladda dalka iyo arrimaha doorashooyinka iyo meesha ay marayaan. waa mahadsantiin.